dadku waxay jecel yihiin inay cid kale eedda saaraan. dadku waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan Ethiopia ayna jebisay, waxay jecel yihiin inay yidhaahdaan gaalada aynoo tashatay oo Maraykanka iyo Ingiriiska mayna waxayna la rabaan baad moodaysaa iyaga ayna qaybinayaan. waxay jecel yihiin inay dowladaha jaarka China maxaa la yidhaahdaa Kenya iyo kuwan baa ayna baabiiyey. waxa kama jiraan runaa isu sheego innaga isjabinay markaynu jabnayna waa laynaga faa'iidaystay. waana sida caadiga bini aadamku u fakaro. Ethiopia maxaa dantaada u raacatay soo doqonnimo maaha inaad la timaado meesha. Ethiopia maxaa dantaada u raacatay waa doqonnimo. Ethiopia masaalixdeeda ilaashanaysa wixii dan ugu jirto, laakiin aanay ahayd inaan maslaxadayda ilaaliyo joojiyo Ethiopia waxaan aniga maslaxadii igu jirin. aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo joojiyo Kenya waxa ay wada hadaan maslaxadii igu jirin. aanay ahayd inaan dantayda ilaaliyo Maraykan iyo Ingiriis baan joojiyo waxay wadaan hadaan dan igu jirin. Nabi Maxamed iyo saxaabadii markay jabeen lama odhan Khalid oo xariifa idin helayo intuu dhabarka idin kaga dhuftay dabeetana wuxuu sidaa idin la dhigay lama odhanin. markay jabeen markay iyagu taktiigii nabiga khilaafeen ayuu Khalidna godololada arkay dabeetana uu ka faa'iideystay. Khalid oo gaala ayaa wuxuu arkay godololada dabeetana meeshii dalooshu ka soo dhacay dee muslimiintu tarab u dhigay. dabeetana saxaabadii waa weyneeda la yaqaanay nabiga adeerkii iyo markii la dilay Xamza iyo raggii la mid ah dhulka loogu tuuray. markay muslimiintu yiraahdeen anna haadana ilaahi baa u jawaabo wuxuu ku yiri qul huwa min indi anfusikum. qul huwa min indi anfusikum. Malik ibn Nabi nin loo oran jiray caalim muslim oo dhintay ayaa wuxuu oran jiray isticmaarku maaha mushkiladiye waa qaabiliyatul isticmaar buu leeyahay. ninkii gumaysiga aqbali karaa la gumaystaa buu leeyahay. gumaysigu walkii buu iska jiray cid rabtay in cid gumaysataa way iska joogtay dee nin la gumaysan karo baa la gumaystaa. Soomaaliduna maxay yiraahdaan miskiin baa miska la fuulo leh. markaad miskiinka noqoto ayaa dadku ku kooraysanaya. marka Soomaaliya meel fog dhib bay ku jirtaa dhab weeyaan taas. laakiin dhibta Ethiopia ku haysa mise Kenya ku haysa mise Maraykan baa ku haya mise Caynkan baa ku haya waa dhibta inaga isku hayna. inaga isjabinay inagana wali istilayna inagana rabna wali inaynu kala guurro inagaan tuulada ku xigta heshiis la ahayn. tuulada ku xigta heshiis lama aha inay ka guurtaa bay doonaysaa. marka haddaynu inagu caqli keenno lagu wada noolaan karana waynu dib u noolaan karnaa. waddankeennina waynu joognaa waanaynu noolaan karnaa. haddaynu caqli keeni weynana dee waa layna gumaysanayaa. adeer ninkaan tashanaynin dee waa loo taliyaa. carruurta yaryar ma tashan karto marka waa loo taliyaa. reer galbeedku waxay yidhahdeen dunida badh baa wisaaya u baahan isma maamuli karaana in la maamulo u baahan. marka ergeyga jimciyadda qurmo ka dhaxaysa laynoo soo dirayaa siduu inoola eego bal inaynu ismaamuli karra iyo waxaynu gaadhnay inay wax saxayeen iyo dhaqaalahaynu u baahnay inaynu kolba barino dhaano askartiina wax ma yeelin qoladaasina wax ma yeelin oo la yiraahdo fanka la idinku darayaa projectka sanadka dambe EU-da idinku daraysa ama USAID baa la idinku daraya. warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo. warsi cidina kuma noolaato dadna laguma noqdo. warsi masaakiinta ku dhargi lahayd hadii cid ku dhargayso miskiinkan yaa la waxsiiyay haya imisun buu lahaa yaa la waxsiiyay. marka waxaan uga jeedaa Soomaaliya waa burbursantay dhibina way haysataa. laakiin aniga aragtidayda dhibteedu ma aha gaal baa soo duulay. dhibteedu waxa weeyaan aniga iyo adiga iyo adeerka iyo ka sii dambeeyaan isdoonaynin. haddaynu inagu caqligu lagu wada noolaado keenno gaaladu waxay yiraahdaan saddex dariiq baa jiro oo bini aadamku uu kala baxo. bini aadamku inuu iscafiyo iska heshiiyo cid la yiraahdo nabad waa lagu kala baxaa. bini aadamku inuu musaalaxa galo win-win solution waxay gaaladu yiraahdaan intuu isu yimaado inuu heshiiyo yiraahdo war balanaan guulaysta adnaad guulaysatide adna wax ka tagaana wax ka tago meel dhaxaan sugu nimaadna hore u soconana wuu kari karaa. bini aadamku inuu garramana waa lagu kala baxaa. war heshiin weynaye hal inoo gar qaado ilaahay kitaabkiisa cid inoogu saar inoogu gar qaada
marjaca waxa la isku garramayaan isku waafaqno dabeetana aan garanno kala baxno haddaynu soomaalina saddexda midna ma ogolin inaynu shacafino iska wada noolaano ma rabno inaynu win-win solution compromise samayno ma rabno inaynu garanno ma rabno laakiin maxaynu rabnaa inaynu ismuquunino inaynu weli rabnaa caqligu inuu shaqeeyo ma rabno weli waxaan rabnaa in muruqu shaqeeyo maalinba ninkeenna waxoogaa dabaabada yaro rooni inta kale inuu yidhaahdo ma idinkaa wax sheegi kara maalin marka laga yaro dabaabada roonaado inuu yidhaahdo maaday gumaysan karaa anna waan jabhaday marka waa un halkeennii baynu ka wadaynaa sidii baynu u wadnaa 25 sano ama 6 sano ama 30 sano la sheegay saa baynu ku wadnay marka waxaan ku soo koobayaa gaalayna ma haysto cid kalena ma haysatay inaga haysanee haddaynu inagu caqli keennana waynu jiri karnaa haddii kalena dee waa laynoo talinayaa ee aqbalaya in laynoo taliyo waxba Itoobiya ku xagxaganina ama Maraykan xagxaganina in laydin taliya aqbala wallahu a'lam